Hogan 24 Media kadigo wehelkaaga. Salaamullaahi calaykum dhammaan asxaabtana daawanaysa habeen wanaagsan halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media aniguna waa Cabdulle Macallim Malto waxaan ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo wararkii xanta suuqa kala iibsiga kubadda cagta qodobada idinku hayana waxaa kamid ah xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi oo go'aankii laga sugayay ku dhawaaqay kooxda Barcelona oo xaaladda si xumaan karto xidigii kooxda Chelsea ka tagay Pedro oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Roma Inter Milan oo go'aan ka gaadhay mustaqbalka tababare Antonio Conte Luis Suarez iyo Carlos Puyol oo afka furtay kadib go'aankii Lionel Messi waxaana barnaamijkeena caawaydii kugu haynaa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ee daawasho wacan haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Hogan 24 Media ha hilmaamin inaad subscribe saartid gabalaalkana furtid si aad u heshid barnaamijyada cusub hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid xidiga Argentina Lionel Messi ayaa ku dhawaaqay go'aankii mustaqbalkiisa ee maalmaha bala sugayay kaas oo maanta warbaahinta waddanka uu laacibka ka soo jeeday Argentina ay sii shaacisay inuu miiska u saaran yahay Lionel Messi oo daadiisu tahay 33 sano jir cimrigiisa oo dhan ku soo qaatay naadiga Barcelona ayaa hadal aan la rumaysan karin oo argagax galiyay naadiga Barcelona ka soo yeeray kaas oo jamaahiirta iyo maamulka kooxdaba niyad jab ku noqonaya kooxda Barcelona ayaa rajaynaysa in Lionel Messi uu saas u noqdo dib u dhiska kooxda oo uu horay tababare Ronald Koeman afar ka mid ah ciyaartoyda waaweyn ugu wargeliyay inuu fasaxayo laakiin kulan ay wada yeesheen macalinka iyo Lionel Messi toddobaadkii hore ayay ka soo baxday kala fogaansho weyn oo banaanka keentay farqiga u dhaxeeya labada dhinac sida ay qorayaan wargeysyada ugu waaweyn Lionel Messi ayaa waxa uu warqad u diray maamulka kooxda Barcelona taa oo ku sheegay inay ka go'an tahay inuu doonayo inuu kooxda ka tago inta ka dhiman suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga lagu jiro Lionel Messi waxa uu qoraalkiisa ku cadeeyay inuu doonayo inay kooxda iska fasaxdo isla markaana ay hirgeliso heshiiskoodii dhigayay inaan waxba lagu xirin haddii uu go'aansado inuu iskaga baxo kooxda inta aanu bilaabin xilli ciyaareedkiisa ugu dambeeya taasoo ah caqabad kale oo Barcelona ka hor istaagi karta inay iibiyaan si xor ahna uu uga tagi karo ciyaaryahanka qodobkan ku jira heshiiskan ciyaartoyga ayaa waxa uu dhigayaa inuu si xor ah kaga tagi karo kooxda inta ka harsan June kowdeeda taasoo la soo dhaafay muddo 2 bilood dheeraad ah inta wixii ka dambeeya waxa hirgelaya shuruud kale oo lagu xirayo isaga iyo kooxaha doonaya oo ah inuu qandaraaskiisa lagu burburi karo lacag dhan 700 milyan oo euro Captain Lionel Messi waxa uu ku sheegay in kooxda Barcelona wax waliba oo karaankiisa u soo qabtay haddana ay tahay in si ixtiraam leh loo fasaxo codsigiisa loo aqbalo si kastaba Barcelona ayay markii horeba ku adagtahay inay iibiso Lionel Messi maadaama aan la saadaali karin sida ay mustaqbalka noqon doonto isaga la'aantiis waxaana kaga sii daran codsigiisa in si bilaash ah loogu fasaxo oo kooxdu doono ku biiro iyadoo aan kooxda Barcelona wax lacag ah ay ka heleen dhinaca kale xidiga garabka ka ciyaaray reer Spain ee Pedro ayaa si rasmi ah u dhameystiray maanta ku biiritaankiisa kooxda weyn ee ka dhisan horyaalka Talyaaniga ee Roma Pedro ayaa ka tagay Chelsea xagaagan kadib markii uu dhacay qadaraaskiisa kooxda Ingiriiska isagoo si xor ah ugu wareegay kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga Pedro waxa uu saxiixay kooxda Talyaaniga heshiis 3 sanadood ah isagoo garoonka stadio ka ciyaari doona ilaa iyo xagaaga 2023 Pedro oo ay daadiisu tahay 23 sano jir ayaa Chelsea u sabtay 206 ciyaarood waxa uuna kula guuleystay 3 koob oo waaweyn laakiin heshiiskii uu kula jiray naadiga oo dhamaada darteed waxaa soo dhamaaday waayihiisa Stamford Bridge isagoo u bilaabanayo waayo cusub sanadii 2015 ayay Chelsea ka soo iibsatay Pedro kooxda reer Spain ee Barcelona taa oo kaga soo iibsatay 22.25 milyan oo giri wuxuuna la qaaday horyaalka Premier League sanadii 2017 markii uu joogay Antonio Conte FA Cup-ka uu la qaaday isla xilli ciyaareedkaas iyo Europe League oo sanadkii hore uu la qaaday Mauricio Sarri muddadii uu xirnaa garanka Chelsea waxa uu Pedro u dhaliyay 43 gool oo uu ku jiro goolkii uu finalka Europe League u saxiixay kooxdiisa Chelsea kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay tababaraheeda Talyaaniga ee Antonio Conte aanu ka tagay doonin xagaagan kadib markii ay faramanaan kaga baxeen tartamadii ay ka qayb galeen isla markaana ay kooxda Sevilla ku garaacday finalkii Europe League oo ay ka qaaday koobka warsaxaafadeed ay kooxda Inter Milan soo saartay waxa ay ku sheegtay in kulan labada dhinac isla yeesheen maanta in Antonio Conte uu sii ahaado tababaraha kooxda xilli ciyaareedka dambe oo noqonaya sanadkii labaad oo uu hogaamiyay kooxda Nerazzurri
tababaraha kooxda Talyaaniga ayaa mustaqbalkiisa shaki geliyay kadib markii ay dhamaatay ciyaartii finalka Europe League ee Jimcihii ay la ciyaareen kooxda Sevilla. waxaanu warbaahinta ka hor sheegay in aanu hubin inuu sii wadayo shaqada kooxda Inter Milan. balse shakigii uu ka qabay inuu weyn doono shaqadiisa ayaa waxay soo dhamaatay maanta, waxa uuna noqon doonaa xilli ciyaareedka soo socdo tababaraha hogaaminaya kooxda Nerazzurri. dhinaca kale kabtankii hore ee Barcelona Carlos Puyol ayaa hoggaanka u qabtay xidiga waaweyn oo hore iyo kuwa hadda jooga Barcelona oo garab istaaga xidiga Lionel Messi oo caawa go'aan argagax geliyay jamaahiirta kooxdaas miiska u saaray maamulka kooxda Barcelona. Lionel Messi ayaa dalbaday in la fasaxo walibana lagu sii daayo qaab bilaash ah maadaama uu dhigayay sidaas heshiis ay kooxda ku wada jireen, inkastoo qodobkaas sidaas ogolaanayay oo waqtigiisu dhacay bishii Juun. dunida oo dhan ayaa hadal hayso go'aanka Lionel Messi, waxaanu warkiisa noqday kan ugu weyn ee cid waliba hadal hayso ee bogagga hore qabsaday, iyadoo ay hadda soo baxayaan kooxaha suurtagalka ah ee xidigani ku biiri karo marka uu ka baxo Camp Nou. xidiga Lionel Messi ayaa u qaaday kooxda Barcelona 4 Champions League, 10 koob horyaalka La Liga ah iyo koobab kale oo fara badan oo isugu jira Copa del Rey, Spanish Super Cup, UEFA Super Cup iyo kuwa kale. waxaanu taariikhda kooxda kaga jira xidigihii ku hogaamiyay guulihii iyo koobabkii ugu badnaa abid. ka badan 630 gool oo uu dhaliyay kooxda Barcelona waxay ka dhigeen laacibka ugu goolasha badan taariikhda kooxdaas, sidoo kale waa ciyaartoyga ugu caawinta badan iyo midka ugu guulaha badan, waana sababta midda uu doonayo in wixii uu soo qabtay lagu ixtiraamo. kabtan Lionel Messi waxa uu markii uu go'aankiisa shaaciyo uu taageero weyn ka helay ciyaaryahanadii hore ee kooxda qaarkood, waxaana halyeygii ugu horreeyay ee hadlay uu noqday kabtankii hore ee kooxda Barcelona ee Carlos Puyol. waxaanu dalbaday in ixtiraam iyo tixgelin la siiyo Messi. waxa uu Puyol sheegay inuu garab taagan yahay Messi oo uu ku sifeeyay inuu yahay saaxiibkii oo uu ixtiraam iyo qadarin u hayo. fariin uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayuu Puyol ku yiri, ixtiraam iyo qadarin Leo, waa ku garab taaganahay saaxiib. weeraryahanka Barcelona ee Luis Suarez oo isaguna la sheegay in tababara Ronald Koeman uu sheegay inuu fasax yahay kooxdii uu ciyaari lahaana uu raadsado, ayaa isaguna garab istaagay saaxiibkii Lionel Messi oo aad ay isugu dhow yihiin. Suarez iyo Messi ayaa saaxiibtinimadooda aanu dah saarneen, waxaana xitaa marka ay fasax galayaan ay qoysaskooda hal meel u wada qaataan. Luis Suarez ayaa qoraalka uu soo dhigay Carlos Puyol jawaab ka soo bixiyay, waxaana ku soo qoray calaamad muujinaysa inuu la dhacsan yahay go'aanka Messi, isagoo soo dhigay sawir sacba tumaya, taasoo ka dhigan inuu la dhacsan yahay go'aanka Lionel Messi. dhinaca kale taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa isugu soo baxay banaanka garoonka Camp Nou, waxaana marba markii ka dambaysa soo badanayo jamaahiirta yaaban, iyadoo sawirada laga soo qaadaya ay marba tiradu ka sii badanayso intii hore. Barcelona ayaa ku jirta xaalad qasan oo aan la saadaalin karin, waxaana suurtagal ah in bixitaanka Messi kadib xilka laga qaado madaxweyne Bartomeu oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyo dhibaatooyinkan oo dhan. si kastaba waxaa la eegi doonaa waxa ay ku dambayso xaaladda Barcelona saacadaha soo socdo. dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa jawaab ka soo bixisay go'aankii Lionel Messi iyo xaaladda oo si kale isku bedeshay. laacibka reer Argentina Messi ayaa caawa gelgelay Barcelona kadib markii uu warqad u diray madaxweyne Bartomeu uu kaga codsaday inuu kooxda ka furo albaabka oo uu si bilaash ah kaga tago kooxda, iyagoo weliba ku ixtiraamaya wixii uu soo qabtay iyo guulihii faraha badnaa ee uu soo hoyay kooxda. waxa uu Messi u sheegay Bartomeu iyo maamulka kale ee naadiga in heshiiskii uu ogolaanayay inuu si xor ah uga bixi karo kooxda Barcelona dib loogu ogolaado, maadaama waqtigii uu heshiiskaas shaqayn lahaa ay ku ekeed bishii Juun 1-deeda. jawaabta laga sugay ayaa ahayd waxa ay kooxda reer Spain ka oran doonto codsiga xidigeeda iyo go'aanka ay ka qabtay iyadoo wada socda. Barcelona ayaana kala daahin jawaabteeda, waxaana si degdeg ah ugu sheegtay Lionel Messi in aanay marnaba u ogolaan doonin inuu si bilaash ah kaga baxo kooxda, isla markaana laga soo gudbay xilligii uu shaqaynayay qodobka ku jiray heshiiskaas oo uu isagu ka faa'iideysan waayay, haddana ay gacantoodu ku jirto awoodda. dhinaca kale jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa isugu soo baxay banaanka garoonka Camp Nou, waxayna ku dhawaaqayaan magaca Lionel Messi, iyagoo dalbanaya halkii uu laacibkani ka tagi lahaa kooxda inuu iska baxo Mario Bartomeu. warbaahinta Spain ayaa qaarkood qoraysa in Mario Bartomeu uu aqbalay inuu iscasilo oo uu shaqada ka tago si ay suurtagal u noqoto in Lionel Messi uu sii joogo kooxda. weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media.
dhinaca kale suuqa kala iibsiga caawa waxaa ka cusub Manchester City ayaa si aad ah ugu shaqaynaysa sidii ay ku heli lahaayeen kabtanka Barcelona Lionel Messi oo 33 sano jir ah. dhinaca kale kooxda Chelsea waxay qaab xor ah kula soo saxiixanaysaa daafaca reer Faransa ee Malang Sarr oo 21 sano jir ah, waxaana la sheegayaa inay la gaadhay heshiis 4 sanadood ah. laacibkan ayaa xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ku qaatay kooxda Nice, waxaana qoraya wargeyska Telefoot. daafaca midiga Arsenal Hector Bellerin oo 25 jir ah waxaa dalab ka soo gudbisay naadiga Paris Saint-Germain, waxaana qoraya wargeyska The Times. dhinaca kale wararka ka soo baxaya waddanka Holland, xidiga qadka dhexe ee kooxda AANKIISA iyo xulka qaranka Netherland ee Danny van de Beek oo 23 sano jir ah waxa uu dalab ka sugayaa kooxaha horyaalka Premier League, waxaana qoraya wargeyska Sky Sport. kooxda Everton waxay heshiis la gaartay laacibka qadka dhexe uga ciyaaray kooxda Napoli ee Alan oo 29 sano jir reer Brazil ah oo ay ka bixinayso lacag dhan 31.5 milyan oo gini, waxaana qoraya wargeyska Express. waxaa intaa inoo weeg wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay oo aad kala socoteen barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. waxaana idiin soo gudbinaya aniga oo Cabdulle Macallim Alto, waanigoo idin leh kulanti dambe iyo barnaamijka lamid ah. Fi amaanillah.